بروفيسور أحمد عبد إسماعيل أقسمها عصب وزارة هرمونية بيئة سوماليلاند oo maanta soo lahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi magacaabay xilkaasi oo tifashka caalamiga sababtiis maanta wax ka weydiiyay sidoo hore xilka madaxweynuhu magacaabay ay waxa ku talinayay xilkaasi isagoo uga mahadnaqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilkaasi oo igmaday ugu horeen agaasimaha oo arintaasi ka hadlaya waxa hadalkiisa kamid ahaa aad baad mahadsantahay Mustafa iyo Sab TV su'aasha hadan toos hadan ugu jawaab waxa weeye horta madaxweynaha aad buu runtii ugu mahadsan yahay waana mas'uuliyad isaga saarna mid la mid ah umbaaneynay soo saaray oo filay markaa inaan hawshaasi biyaha waxaan ka tari karayo inaan insha Allah taala aan ka qabto waxaan ka rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa taala inuu ii fududeeyo kulleeyda xilna waa culays waana laakiin saatana deewa gudasho mas'uuliyadu waxaan islaahay oo ku cibaadeysan kartaa oo waxa weeye markaad gudato mas'uuliyadaada cibaadada way ku noqon kartaa waxay inay karaankaaga hadda wax qarana Ilaahay subhanahu wa taala inuu naga dhaafan rajaynaya madaxweynaha waan ugu mahadnaqayaa waan ku hambalyeynaya inuu aniga ugu soo daray kabinetkiisa iyo cid la shaqeyn doonta Marsal TV wax ka weydiiyay agaasimaha cusub wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland qorshaha u yaala inuu wax kaga bedelo baahida loo qabo dhinaca biyaha gaar ahaan magaalada Hargeysa oo baahi weyn u qabto inay biyo ku filan hesho ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyay agaasimuhu qorshayaas u yaala inuu wax weyn kaga bedelo sidii bulshada looga qabsan lahaa dhinaca biyaha oo ah aasaaska nolosha waa kan agaasimaha oo arintaasi ka hadlaya tawarno biyo waa nolosha bini'aadanka nolol oo dhan bini'aadanka tamaha in wax weyn laga qabtaan runtii waxa weeyaan waa hawl culus oo wadanka taala ana xaslay laba arrimood baad loo shaqeyn karaa mid waxa weeye in la hirgeliyo siyaasadka la xiriira biyaha ee qaranka u yaala haday tahay heer wasaaradda iyo heer magaranayay qaranba talbaadna waxa weeye wixii karti iyo aragti cusub in lagu soo kordhiyo oo ay waliba mas'uul ka tahay wasaaradda wasiirkeeda maanta uu joogo oo runtii nin khibrad leh isaguna ah in waxa weeyaan kartiyaha iyo aqoontaasi meesha taala la isku daro muhiim weeye ani waxa weeyaan shakhsiyan wax maskaxda ku jira weeye in aragti cusub biyo lagu soo kordhiyo waayo wadankeenu biyo yaraan ma hayso haday tahay biyaha dul mara ee badda gali haday tahay biyaha hoosta ku jira laftigeeda si looga faa'iideysan lahaa haday tahay wacyigelinta si biyaha loo isticmaalayo haday tahay dardargelinta hawlaha biyaha la xiriira oo waxa weeyaan tahay mashaariic iyo hawlaha kala sii socda laftigeeda waxaas markaa waxay keenaysaa in waxa weeyaan aragti cusub lagu soo kordhiyo iyo energy cusub waxaan ka rajaynayaa tiimka wasaaradda sii joogay iga sii horeeyay wasiirku mid yahay iyo agaasimo xidhiidhada in ma insha Allah hawsha waxaan aan wato in la soo galo iyaguna aan markaa isla jaan qaadi doono waxay wadeenaan markaa aan dhiig cusub insha Allah aan ku soo kordhin doono Mustafa Caraale Sab TV